halkan ayaa goobta uu ka dhacay ama goobta uu ka dhacay qaraxa qofka isku soo xiray ama qofka naftihaligaha muqaayaddan iga dambaysa ayaa ahayd goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana loo sheegay markan qaraxu dhacayay in halkan ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horeeya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya taliyaha Xijaar sidoo kale waxa goobta ku sugnaa xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ama wasiirada waxa kamid ah wasiirka kalluumaysiga iyo wasiir dawladda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya halkan oo ah goobo ganacsi oo u dhow goobta qaraxu ka dhacay waxa ilaa iyo hadda ku jira meedadka 3 qof sida ay noo sheegeen sidoo kale waxa goobta laga qaaday meedka 7 qof dhaawac ayaa waxa ay sheegayaan inuu kor u dhaafayo ilaa 8 qof dad goob joogayaal waxa ay noo sheegeen markii qaraxu u dhacayay in halkan oo ah ay yaaleen baabuur fara badan isla markaana uu ka jiray cariiri fara badan dadkuna ay ahaayeen xilli ay afur ka soo laabteen oo ay u soo damaasha tageen xeebta Liido oo gadaasheeda ka muuqata qaraxa markii aad fiiriso goobta uu ka dhacay waxa jira khasaare baaxad weyn oo qaraxan u dhaliyay waxaana la arkayaa burbur soo gaaray dukaamo ka dhow goobta qaraxu uu ka dhacay sidoo kale waxa la arkayaa dadka dhintay kabayaalkoodii iyo meedadkoodii qaarkood oo wali goobta yaala qaraxan waxa uu imaanayaa iyadoo maalinta bariya maalfilaya magaalada Muqdisho in ay ka dhacdo hadal jeedinta qaar kamid ah ama gudoomiyaasha iyo musharaxiinta u tartamaysa golaha shacabka